sanadkii 2017 Faransiiska waxaa ka dhacday dhacdo naxdin leh oo qoys in si lama filaan ah loo waayay. Dhacdadan ayaa markiiba dhalisay jahawareer weyn. Shakigu wuxuu markii hore ahaa wiilka qoyska, laakiin baaritaanku wuxuu u furmay albaabo cusub oo sirdoon, cadeymo aan la filayn oo dalkaasi oo idilka yaabisay. waa idin salaam saaxiibayaal, soo dhawaada. haddaad nagu cusub tahay subscribe iyo janalka laagtana isaar. Sanid sheekadeena maanta waxay nageynaysaa dalka Faransiiska. 13 Febraayo 2017 haweeney ayaa la xiriirtay booliska iyadoo ka warbixisay maqnaansho la yaab leh oo qoys dhan. waxay tiri walaashay dhowr maalmood kamay jawaabin taleefanka, taas oo aan caadi ahayn sababtoo ah maalin walba ayay wada hadli jireen. waxaa intaasay ku sii dartay in markii ay isku daydeen inay la xiriirto aabbaha qoyska, asagana uusan ka jawaabin taleefankiisa. xataa caruurtoodii Sebastian oo 22 jir ahaa iyo Charles oo 18 jir ahayd ayaguna wacitaanka ma aysan ka jawaabin. qoyska oo dhan ayaa la waayay. warbixintaasi waxay ku kaliftay booliska iyo baarayaashu inay dhaqso u dhaqaaqaan guriga qoyskan si ay u hubiyaan waxa dhacay. markii halkaas ay tageen waxay arkeen labada gaari oo guriga hortiisa yaala. albaabkuna si fiican ayuu u xirnaa, wax calaamad ahna kamay muuqan in la jabsaday, laakiin waxay ogaadeen in daaqada ay furan tahay. booliska halkii ay ka jebin lahaayeen albaabka, waxay go'aansadeen inay daaqada ka galaan. maalmo ka hor dharkii la dhaqaya ayaa weli ku jiray mashiinka oo aan la qalajilin, taasoon caadi ahayn in qof safar aadayo oo dhan mashiinka uga tago. waxyaabaha kale ee la yaabka lahayd, dhammaan moobeeladii qoyska ayaa maqan, laakiin jaajaradoodii weli waxay ku xiran yihiin korontada. caadi ahaan qof safar aadayo wuxuu qaataa moobeelkiisa iyo jaajarkiisa, laakiin guriga waxaa yaala jaajaradooda keliya. arrintaasi awgeed kooxda cadeymaha baarista ayaa loo yeeray. markii ay gudaha u galeen waxa ay heleen waxyaabo cabsi badan. qolka gabadha waxa ay ka heleen moobeel leh dhibco dhiig ah. qolka wiilkana waxa ay ka heleen saacad jajaban oo dhiig ku wasaqaysan yahay, laakiin guriga intiisa kale wax dhiiga lagama helin. si loo hubiyo waxay adeegsadeen kiimika, taasoo dhiiga xitaa haddii si fiican loo nadiifiyo la fahmayo. markii la damiyey nalalka oo lagu rusheeyey kiimikada, guriga oo dhan wuxuu u iftiimay buluug, taasoo muujinaysa in dhiig badan halkaasi laga nadiifiyey. raadka dhiiga ayaa muujinaya in la jiiday meedka qolka fadhiga ilaa qolka dharka lagu dhaqo oo u furmaya garaashka. waxaa cad in guriga gudihiisa lagu dagaalamay, dagaalkaasna uu ahaa mid dhiig badan ku daatay ayadoo la adeegsanayo seef ama mindi, ma ahayn qori. cadeymahaasi oo dhan waxaa loo diray shaybaarka, kuwaas ay ku jireen moobeelkii iyo saacadii jajaban ee carruurta. waxaa sidoo kale la qaaday saxamada cuntada iyo koobabka si loo baaro DNA. baaritaanka qaraabada iyo dadka qoyska yaqaan ayaa muujiyey in Pascal oo aabbaha qoyska in uu ahaa nin degan oo aan saaxiibo badan lahayn, halka xaaskiisa ahayd haweeney furfuran. baarayaashu waxay sahminayeen raadkii ugu dambeeyey ee qoyska. waxay ogaadeen in dhammaan xisaabaadkooda bangiga aan la isticmaalin wixii ka dambeeyey 17 Febraayo. fariintii ugu dambeysay ee la diray waxay ahayd Sebastian oo u diray saaxiibkiis isla maalinkaas. kadib dhammaan moobeeladii qoyska waa la damiyey hal mar habeenkii 17 Febraayo kadib saqda dhexe. arrintaasi waxay caddeysay in qof si ula kaca u ururiyey moobeelada uu damiyey si loo qariyo raadka qoyska. waxyaabo la yaab leh ayaa lagu helay boggiisa. Sebastian wuxuu ku aflagaadeeyey aabihiis si fagaara ah Facebook, taasoo muujinaysa in dhibaato weyn ka dhex jirtay asaga iyo aabihiis. laakiin taasi keliya ma ahayn waxa ugu khatarta badan ee laga helay. sanadkii 2013, 4 sano ka hor maqnaashahooda, wiilka wuxuu galay dacwad halis ah kadib markii uu fariimo cabsi leh u diray ardayda iskuulka asagoo u hanjabaya inuu dili doono. markii sawirka ka soo baxay, Sebastian wuxuu ahaa mid cabsi badan, wiil dagaal badan, kana careysan aabihiis. tani waxay keentay su'aalo. baarayaashu waxay arkeen suurtagal in Sebastian mas'uul ka yahay dilkan, sababtoo ah taleefankiisa ayaa kii ugu dambeeyey ee la damiyey habeenkaas, iyo gaarigiisii oo aan guriga hortiisa aalin. sidaas darteed wuxuu noqdeen tuhumsanaha koowaad. laakiin markii natiijooyinka dhiiga DNA-da laga soo qaaday guriga la helay, waxay muujiyeen dhiiga 3 qof oo keliya: aabbaha, hooyada iyo Sebastian. dhiiga gabadha lama helin. su'aashu waxay noqotay, haddii dhiiga Sebastian la helay, ma laga yaabaa in asaga laftirkiisa la dhaawacay mise la dilay? waxaa kaloo la isweydiiyey haddii labada dilay jirkoodii xaggee lagu qariyey. 1 Maarso 2017 haweeney orod sameynaysay ayaa wadada dhinaceeda ka heshay surwaal
gudihiisa waxaa ku jiray kaarka caafimaadka ee Sharla. Meesha laga helay waxay ahayd wax yar u jirtay guriga qoyska. Taasi waxay siisay booliska rajo ah in Sharla laga yaabo inay weli nooshahay ama la afduubtay. Markii gaariga la baaray waxaa la ogaaday in booska dambe si fiican loo nadiifiyey. Markii kiimikada lagu rusheeyey waxay u iftiimtay buluug caddeen in dhiig lagu daashay, isla markaana jirkooda halkaasi lagu qaaday. Sidaas darteed warbaahinta oo dhan waxay ku dhawaaqeen in Sebastian yahay tuhmanaha koowaad. Laakiin baarayaashu waxa ay heleen caddeyn ka sii daran. Koob yaala jikada guriga. Markii DNA-giisii la baaray waxaa la ogaaday inuusan lahayn qof ka tirsan qoyska. Koobkaas waxaa la isticmaalay isla habeenkaas. DNA-gaasi waxaa loo diray keedka qaranka. Markaas maxkamadda ayaa amartay in DNA-gaasi la barbar dhigo dhammaan dadka qaraabada ah iyo kuwa la wareystay. Natiijada waxay ahayd la yaab weyn. DNA-gu wuxuu sheegay nin la yiraahdo Rupert, ninka guursaday walaasha Pascal. Markii la wareystay wuxuu sheegay inuusan sanado badan arkin qoyskan oo aysan xiriir la lahayn. Laakiin DNA-giisa ayaa laga helay koobka guriga, caddeen inuu been sheegayay. Tani waxay keentay in Sebastian gabi ahaanba laga saaro tuhmanaha koowaad oo indhuhu ku wareegaan Rupert. Rupert wuxuu ahaa nin 46 jir ah, farsamo yaqaan ka shaqaynaya warshad ciidan. Sanadkii 2010 gurigooda oo ku yaala moolka miyiga wuxuu aad ugu dhowaa meesha surwaalka Sharla laga helay. Tani waxay ahayd caddeyn kale oo sii xoojisay tuhunka. Markii la wareystay qaraabada kale waxa ay sheegeen in Rupert iyo Pascal oo muddo dheer isku hayeen muran ku saabsan hanti qarsoodi ah. Dahab la sheegay inuu hoos u dhacay dagaalkii labaad ee adduunka. Rupert hore ayuu ugu hanjabay inuu dili doono Pascal, asagoona ku eedeeyay in dahabkaasi uu qaatay. Rupert wuxuu qirtay inuu dhab ahaantii tagay habeenkii 16 Febraayo, balse uusan niyad u haynin dil ama waxyeelo, oo kaliya rabay inuu basaaso Pascal si uu xog uga helo qasnada dahabka ee Pascal la sheegay inuu xaday. Wuxuu kaloo qirtay inuu rabay inuu xado furaha guriga si uu mar kale ugu soo laabto si uu xur ahaan u baarto. Habeenkaas abaara 5 saac habeenimo wuxuu ka soo galay daaqada guriga, wuxuuna ku dhuuntay qolka dharka ilaa ay qoyska wada seexdaan. Markii guriga aamusa ayuu soo baxay si uu u raadiyo furaha, balse Pascal iyo xaaskiisa ayaa maqlay buuq. Pascal wuxuu soo degay asagoo sitay bir culus. Markaas ayuuna arkay Rupert. Wuxuu ku qayliyay waan ku dilayaa, sida uu Rupert sheegay. Pascal dhowr jeer ayuu ku dhuftay. Rupert si uu isku difaacay ayuu birtii la qabsaday. Dagaal culus ayaana meeshaasi ka dhacay. Ugu dambeyntii Rupert wuxuu si xoog leh ugu dhuftay Pascal oo dhulka ku dhacay. Kadib Bridget ayaa soo degtay si ay u caawiso ninkeeda. Rupertna wuxuu ku dhuftay birta ilaa ay dhulka la dhacdo. Markaas kadib carruurtii ayaa soo toosay. Sebastian markii uu arkay waalidkiisa oo dhulka yaal wuxuu isku dayay inuu dilo, balse Rupert madaxa ayuu kaga dhuftay, isla markiiba wuu dhintay wiilkii. Wuxuu u orday qolka gabadha yar, halkaas ayuuna madaxa kaga dhuftay birtii uu. Kadib hooyadii oo miir beesha ayaa soo toostay, waxayna isku dayday inay musqusha isku qariso, laakiin Rupert ayaa qabtay oo mar kale birtii cusleed ku dhuftay ilaa ay ka dhimato. Rupert wuxuu sheegay inuu guriga qoyskaani ku sugnaa ilaa subaxdii xigta. Kadibna wuxuu u tagay xaaskiisii Lydie si uu ugu sheego wixii dhacay, laakiin la yaabka Lydie halkii ay ka canaanan lahayd ninkeedii oo dilay walaalkeed iyo qoyskiisa, waxay la aaday gurigii walaalkeed si ay ugu caawiso in cadeymaha la tirtiro. Lydie ayaa gaariga ku sugaysa ayadoo jidka ka ilaalinaysa inay dad soo maraan, halka Rupert guriga nadiifinayay. Inta uu nadiifinayay koob biyo ayuu cabay kana tagay, taasoo ahayd qaladkii ugu weynaa. DNA-giisa ayaana koobka ku haray, waxaana markii dambe helay booliska. Rupert wuxuu guriga u diyaariyay sidii inay qoyska si lama filaan ah u safreen. Kadibna meydkii 4 ahaa ayuuna ku riday gaariga, laakiin qorshihiisii halkaas ayay ku ekeed maya. Wuxuu rabay inuu qariyo raadkooda gabi ahaanba. Markii uu gurigiisii ku noqday wuxuu keenay faas iyo mindi, wuxuuna bilaabay inuu googooyo meydkii 4 qof ahaa 24 saacadood. Xaaskiisii Lydie waxa ay sheegtay inay ka soo horjeeday, balse ay aamustay si aan wiilkoodii yar u dareemin. Qaybihii jirka wuxuu ku shubay foornada guriga si uu u gubo. Wixii kale wuxuu ku daadiyay beer weyn oo 32 hektar ahayd, asagoona filayay in xayawaanka tirtiro wixii raad ah. Hawshaani waxay socotay 10 maalmood. Lydie intaasoo dhan waxay u dhaqmaysay sidii qof caadi ah, ayadoona xasuusan inay tirtireen walaalkeed iyo carruurtiisa. Booliska waxay qabteen Lydie iyaduna waxay xaqiijisay qirashada ninkeeda.
waxaa si cad loo arkay xiriirkooda xooga badan taasoo shaki gelisay in ay runta dhan sheegayeen. waxay ku doodaysay inay ahayd isdifaac iyo inay Liddy aysan joogin habeenkii dilka, laakiin baarayaashu waxay arkeen waxyaabo aan iswaafaqsanayn. markaas ujeedka booliisku wuxuu noqday inay helaan haraadigii 2 maalmood oo baaritaan ah kadib, iyadoo in ka badan 130 askari baarayeen. waxaa laga helay beerta qeybo kala firdhisan oo haraadiga qoyskani. baaritaanka DNA-ga wuxuu xaqiijiyey inay yihiin 4 qof ee reerkani. qasnadii la sheegay in Pascal xadayna lama helin xitaa kadib 2 sano oo baaritaan ah. sidaas darteed waxaa loo maleynayay in dahabku uusan jirinba. inkastoo ay qirteen dembiga, haddana kiiskii weli lama xalin sababtoo ah lama garanayo cidda qorshaha dhabtaa lahayd iyo danta ay ka lahaayeen. Rupert waxaa lagu xukumay xabsi daa'in, Liddyna waxaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah, balse la hakiyey. dembigeeduna wuxuu ahaa qarin iyo tirtirin cadeymo. laakiin halkay ku dambeysay qasnadii iyo dahabkii la sheegay? sheekada ilaa maanta waxay tahay xal la'aan iyo qarsoodi, inkastoo dambiilaha la xukumay.